waxaa weli si xoog leh isku soo taraya macluumaadka laga helaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhasha qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho. qaraxan oo lala eegtay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka banaadir oo dhowaan uun xilkani loo magacaabay Farxaan Maxamuud Qarole oo isagu marayay wadada xilliga uu qaraxa dhacay. war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa looga hadlay qaraxa, waxaana qoraalka lagu sheegay in taliyaha uu ka badbaaday qaraxani. sidoo kale taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro khasaare xoog leh oo ka dhashay qaraxan, kaas oo leh dhimasho, dhaawac iyo burbur guud intaba. qoraalka ayaana lagu yiri weerar argagixisada soo maleegtay ayaa lagu weeraray gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa, kaas oo lagu weeraray taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir Genaraal Sare Farxaan Maxamuud Qarole. taliyuhu waa uu nabad qabaa walow uu jiro khasaare qaraxa ku reebay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho. argagixisadu cidna kama niyad jabin karto adeega ummadda loo hayo ayaa lagu yiri qoraalka. sawiro lasoo qaaday oo muujinaya qaraxa meesha uu ka dhacay ayaa waxa ay muujinaysaa in uu burburay guud ahaanba gawaaridii maraysay wadada. inta la xaqiijiyay waxaa qaraxani ku dhintay ugu yaraan ilaa 8 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 10 kale oo isugu jiro askar iyo dad shacab intaba. waxaa la sheegayaa in saraakiil ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka ee dhanka amniga ah loo xiray qaraxani kadib markii shakiyo xooglan ay soo baxeen oo ku aadan cidda fududeysay xogta ku aadan in taliyaha uu waqtigaasi uu marayo wadada xilli uu ku soo jeeday xarunta taliska guud ee booliiska Soomaaliyeed. weli xaaladda isgoyska banaadir ayaana cakiran, waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda oo baaritaano halkaasi ka wada. qaraxan ayaana ka qayb noqonaya falal lid ku ah amniga oo maalmihii ugu dambeysayba siyaabo kala duwan uga dhacayay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. xogta aan helayna ayaana sheegaysa in uu soo baxay shakiyo xoog leh oo ku aadan cidda fududeysay xogta ku aadan in uu wadada marayay taliyaha xilligaasi xilli uu ku sii jeeday taliska booliiska Soomaaliyeed ee qaybtiisa guud, halkaas oo ay ku ballansanaayeen guud ahaanba taliyayaasha booliiska gobolka banaadir iyo taliyaha, iyagoo laga wada hadlaya xaaladda guud ee amniga gobolka banaadir iyo dhacdooyinkii ugu dambeysay ee ka dhacay magaalada muqdisho ugu dambeysay falalka lidka ku ah amniga, gaar ahaan dhaca dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho loogu geysanayo. wararkan helaynayaana waxa ay sheegaysaa in taliyayaasha booliiska gobolka banaadir qaybo ka mid ah degmooyinkiisa loo xiray qaraxani sababo shakiyo ku aadan inay iyaga fududeeyeen xogtani, iyadoo la sheegayo in uu ogaa in taliyaha uu tegayo xarunta oo keliya taliyayaasha booliiska ee degmooyinka ee gobolka banaadir, halkaas oo la sheegayo in waqtinimadii xalay ahayd ay ku wada sheekaysteen group WhatsApp ah oo ay ku wada jiraan guud ahaanba taliska qaybta booliiska ee gobolka banaadir, halkaas oo ay ku wada qaataan xogta iyo waliba fariimaha kaga ugu dambeysay ee ku aadan arrimaha wada kulamada ay yeelanayaan iyo weliba sidoo kale ballamaha xilliyada ay leeyihiin. waxaana durbaba soo baxay in guud ahaanba gruubkaasi la dhiliidgareeyey oo la tirtiray sababo la xiriirtay baa la yiri markii laga shakiyay dad ku jiro gruubkaasi inayba ahaayeen qaarkood baa la yiri taliska gudoomiyaasha degmooyinka booliiska ee gobolka banaadir. maantay 10 July 2021 abaar 10 subaxnimo ayaa qoliyaha argagixisada ahaa ee hore u caadaystay daadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda Soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo marayay wadada ka leexata isgoyska banaadir ee aad istaal Madiino ilaa Villa Baydhabo xaggeeda. meeshaan hadda taagannahay ujeedka argagixisadu wuxuu ahaa inay baneystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale Soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa ama meesha marayay. qaraxa argagixisadu ay la beegsatay Ilaahay xamdigiis taliyuhu uu ka badbaaday walow uu jira khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama marayay wadada. khasaare wuxuu ku sugan yahay khasaaraha ayaa soo gaaray dadka shacabka ah goobta ku sugnaa. khasaaraha ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argagixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin Ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo.
laakiin uu jiro khasaarada shacabka soo gaaray inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo u badan dadkii goobta marayay mana jiraan wax khasaare inta ka badan oo qarax uu reebay argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed de mar aan ilaahay haduu yiraahdo cadaaladda ayaa la horkeeni doona waa la kula xisaabtami doona mana qalqal gelin doonto mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayay in argagixisadu ay qof iyo laba nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda horena ma ahan markii koowaad ay saan oo kala dad baarsadaan laakiin argagixisadu waxay inta ka badan ay sameyn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan moogi marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoolada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin hor istaagina karin